السلام عليكم صباح وناكسن soo dhawaada asxaabteena meel kastoo adduunka aa ka joogtaan shaah cadays ku soo dhawaada maalmahan waxaa noo da-ay roob soo waxaan daaqada ka fiirinayay inuu roobkii xalay da-ay intaa hurdeynay maadaama ay jimco tahay waxaa iska jecelnahay maalinka jimcaha in aan ku quracno hilib gabadhaydii fiican ahaydna waatanaa jikada iga hagaajinaysaa wiilkayga maasha allah waa kana iyo jamaacadeyda dhammaantood masaajidka isku diyaariyeen qaarkoodna waaba baxeenba gabadheyda xataa waa ujeediin waxaa ka badan dhibaatada uu keenayo qofka xaasidka oo qofka xaasidka waxay dhahay culamadu shan dhibaato ay u geysanayaan inta uusan qofkii la xajayba dhibaato ay ka gaadeen ka koobaad waxaa weeye tanbun wa dhanbun laa yanqatic waa murugo iyo waljahaan aanan go-in waayo qofkana qalbigu ka bukaa waa murugoonaya marka alla wanaaga siiya uu murugoonaya waa hanti iyo murugo ku jiraasada mar walba tanbun wa dhanbun laa yanqatic waa murugo كان أنا كبها مال كودي جاي وحسد كبرنا اللي إلى القطة وكبشر ولم ليه لا حسد إلا في اثنتين حسد نجر إلا ما الشيء على قولة إن الله الشيء من بلاغه يأتيه فتاة وصلوا كما أنسي وقعتها وفي الله سبحانه وتعالى قرآن سي وهريك بلتك زي ما ذنبي وين بحباخده بهتانا وقصبه وإثما مبينا يذنبي عرضه وين أمير كمان مساشة هاك شعمان أماني Ice, já fica ali o ice. وريا أحمد قاعدة أبي إسكي قاعدة ما حكى عقل العك alxamdulilaah wax kale oo aan dhihi karo ma leh waxaa waaye fadli ilaahayna siiyey inuu meeshaana keenay dadkan muslimiinta ee aa ka mid nahay sidaan u quruxda badan maasha allah saan u labisa karno caruurteena saan u labisa karaan xijaaban yihiin maalmaha kale qur-aankooda bartaan masaajidkeena aadi karno wax walba maasha allah si aan ilaahay noogu talagalay oo noo abuuray ee noogu socdaan ilaahu intaa haysanna sii asxaabteyda qofkii muuqaalkan ka hela please like iyo share iyo subscribe saara channelkan meeshaan waa Nasra Garden xaafadda Nasra Garden waa xaafad aad iyo aad u fiican